sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo isku haysta xilalka gudoomiyaha golaha shacabka iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta hortagaya guddiga joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya si uu xilka gudoominimo ugu wareejiyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee sacdiya iyadoona sacdiya ay noqon doonto haweeneydii ugu horeysay oo noqota gudoomiye baarlamaan. tanina waxay noqon doontaa taariikh baal cusub ay ka furan doonto guud ahaan ee dalka ee Soomaaliya inay noqoto haweeneydii ugu horeysay oo gudoomiye baarlamaan ka noqdo gudaha dalka ee Soomaaliya. isla dhanka kale hogaamiyaha ee koonfur galbeed sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa qaadacay dastuurkii hore isagoona ahaa lafdhabartii ugu muhiimsanaa ee dastuurka cusba kaasoo muddo kordhin u saamaxaya dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud. sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa si toosa u diiday in looga waco hogaamiye isagoona sheegay inuu yahay madaxweyne dowlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya. tanina horey waxay isku qabteen madaxweynihii hore ee maamulkaasi cabdicasiis laftagareen iyo villa Soomaaliya oo ahayd arrinka la isku haysto dhaqangelinta dastuurka cusub iyo sidoo kale doorashooyinka iyo nidaamka ay doonayso dowladda federaalka Soomaaliya. sheekh aadan maxamed nuur madoobe wuxuu ahaa lafdhabarkii ugu muhiimsanaa oo ka shaqeynaya sidii dastuurka cusub oo dhowaan oo muddo kordhin aan sharci ahayn u saamaxaya dowladda hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si diidan in loogu waco hogaamiye isagoona iyadoona bogaga rasmiga ee Southwest ay leedahay lagu daabacayo inuu yahay madaxweyne dowlad goboleed ee koonfur galbeed ee Soomaaliya laakiin uu diiday in looga waco hogaamiye. dastuurka cusba wuxuu dhigayaa in dhammaan maamul goboleedyada ee dalka ka jira hogaamiyaashooda looga waco hogaamiye laakiin aysan ahayn madaxweyne. dastuurka wuxuu dhigayaa in madaxweynaha kaliya uu noqon doono qofka hogaamiya amaba fadhiya ee villa Soomaaliya iyadoo dowladda federaalka cidda hogaaminaysa kaliya looga wici karo madaxweyne laakiin maamul goboleedyada dalka madaxda joogta loogu waco hogaamiye. sheekh aadan madoobe miyuu doonayaa qorshe la mid ah tii uu madaxweynihii hore ee koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen iyo villa Soomaaliya ay isku qabteen?